بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي كسو دوادا أصحابتي نولا جوجتو ومحسنتين أصحابتي عصو فضلا سبسكرايب ما شاء الله maanta waxaa noo wadaa alaab cajiib ah isku soo sameeyay oo ka kooban ma sha Allah geed kuleyl ama waxyaalaha hargabka iyo ka hortaga oo gurjikadaada ka helaysid ma sha Allah. marka isla aragna waxa ka kooban tahay waxa isticmaalaya insha Allah 2 xabo liin dhanaan sanjabiishaas gobolka waa sanjabiisha qoyan ma sha Allah. sanjabiisha aad u fiican tahay immunity-gaaga way soo dhisaysaa difaaca jirkaaga hargabka waxyaalaha oo fiican tahay waxa kale oo fiican tahay dadka dhiig karka qaba iyo dhiigga kala dejisa ma sha Allah. iyo toontuna aad u fiican tahay malab intaas insha Allah isla isticmaalayaan dirbeedmo oo soo jarjaraya alaabtan ma sha Allah aad u wanaagsan tahay hargabka difaacaga ay soo kicinaysaa inta saacadeyn rabtid ognaayna maanta adduunka waxa khalkhal galiyay coronavirus ilaahay hanaga badbaadiyo insha Allah anaga inta islaam meel kasto aan joogno ilaahay hanaga badbaadiyo. marka waxa fiican inaan ku dadaalno alaabtan oo kaleeto oo hadii immunity-gaaga soo kicisid waa hargab oo kaleeto insha Allah difaaca jirkaaga uu soo kaco nagu dhicmaya dad islaam aan nahay ilaahay aan tala saarano adkaaraadka akhrisana markasta insha Allah. kan toonti aad u wanaagsan tahay 4 qaado malab meelaha sameesha ku soo shubtay insha Allah oo isku shiidaya dirbeed halkan sanjabiishi waxa ku jira 2 xabo liin dhanaanta si yar yar aan u jarjaray toontan ku daraya ma sha Allah iyo malabka aad inta jeceshay qiyaastaada ani 4 qaado camal baa hadda isticmaalaya waxaan rabaa shaah camal inaan ka dhigto weel baa ku shubanaya fridge-ka gashanaya ma sha Allah biyo karkarsan subaxii aroortu ku cabi ka dhaa maalintii inta rabto marna kuma diidayo shaah baa ka dhiganaysaa daa iscaateen rabtid ayadana sanjabiishi liin dhanaantu ma sha Allah qofka waa ka ridaan weydka daragalar ka dhigatid cuntada dhaydkeedana aad saxdid insha Allah. marka isla soo shiidaya intaan dirbeedmo والله alaab cajiib waaye hadii aad tijaabisaan awishina kale doontaan toonta qofka inta badan urkeeda la dhibsada laakiin saan oo kale marka isugu shiidid hal qaad ama 2 qaad ka isticmaashid ma dareemaysid urkii toonta waxa soo dhan aad uma dareemaysid waana daawo aad u fiican toonta caalamka inta hindida iyo aad u isticmaalaan aad u wanaagsan tahay insha Allah. waa kana aad si fiican u soo shiiday dhalo waxaan ku shubanayaa dabool aan dirbeedmo fridge-ka gashanaya insha Allah. waxa kale idin tusayaa sida u isticmaali karid koob biyo oo karkarsan oo kulul baa waxa ku darsanaysaa 1 qaado insha Allah. waa shaah caadiya waxaana cuntay shaah waxa cabtay shaah aad caafimaad u leh waa kana aad koobkana ku soo shubay waa dhalo dabool ma sha Allah insha Allah. waa isla arkayna koob biyo karkarsan hadda soo qaadaya biyo kulul 1 qaado ku darsanaya subaxii aroortii hadii aad markaas soo kacdid ku bilowdid maalintaada wax caafimaad la ku bilowday caloosha waa ku soconaysaa insha Allah. cholesterol-ka dhiigaaga waa ka saaraya dhiigga qofka hadii cholesterol iyo xasaas ku jiro waxyaalo badan oo dejinaya dhiigaaga kala miiraya insha Allah. soo tijaabiyaan dirbeedmo waa shaah ma sha Allah aad u macaan hadaa macaanka badan jeclay malabka iska yareyn kada malabku si sokorta kala ma aha runtii oo ka healthy sokorta insha Allah. inta kale waa kana waa daboolaya fridge-kan gelinaya insha Allah dhowr maalmood baa isticmaali kada insha Allah. soo tijaabiya aan dadaalno ilaahay hana xifdiyo meel kasto aan joogno xanuunka soconaya ilaahay hanaga badbaadiyo wadankeena iyo ummadda islaamka oo dhan ilaahay ka badbaadiyo idinka ilaahay. waxa kale u baahanahay inaan akhrisano hadii ilaahay qadaro adkaar الصباح iyo adkaar
masaaba maasha Allah inaan ku dadaalno iyo ducooyinkan hadda idiin soo qoray أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 3 jeer qofka haduu dhaho iyo بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 jeer يا اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام إن شاء الله aan dadaalno. Please subscribe channel كيني وكما سنتين daawashadina. Assalaamu calaykum.